sibad ballaadhan oo lagu soo bandhigay buug la yiraahdo Tayada Aqoonta ay qortay Sahra Ayaan oo ah gabadhii ugu horeysay ee qoraa ah ee buuggeeda ku soo bandhigta magaalada Burco ayaa xalay lagu qabtay hoolka jaamacadda Burco. Munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen naadiga akhristayaasha ee halkan Readers Club ayaa ka soo qayb galeen maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad ku-xigeenkiisa Master Xoday, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco, abwaano ardayda jaamacadda Burco, mas'uuliyiinta naadiga halkan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha naadiga halkan Ibrahim Cabdi Xamari, waxaana uu soo bandhigay tirada buugaagta ay soo bandhigeen naadiga muddadii uu jiray, muddadaasi oo 5 sanadood ku dhaweyd, waxaana aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qoraalka oo la joogteeyay iyo dadaalka ay qoraaga da'da yar samaysay. maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad iyo ku-xigeenkiisa Master Xoday oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda ay xambaarsan tahay aqoonta, iyagoo ka sheekeeyay farqiga u dhaxeeya waxbarashada waqtigii hore iyo maanta, iyaga oo si weyn ugu bogaadiyay una dhiirigeliyay qoraaga buuggan Sahra Ayaan oo ay ku tilmaameen inay tahay inan karti badan, waxayna ballan qaadeen inay kuna dhiirigelin doonaan aqoonta iyo buugga ay qortay, iyagoo dhinaca kale ballan qaaday in naadiga halkan ay qayb weyn ka qaadan doonaan xarun buugaagta lagu kaydin doono oo ay yeelan doonto bulshada ku dhaqan magaalada Burco. ujeedada ku jirta waxyaalaha laga faa'iideeyo inaan madalano aan kala soo diyaarino oo aan u talagalno qoraaga iyo akhristu inay isku bartaan. naadiga akhriska halkan waxaa la aasaasay sanadii 2009 bishii 11 baa la aasaasay. intaa uu jiray muddo 5 sano uu jiray, 5 sanadood naadiga akhriska halkan uu soo bandhigay 50 buug tiro gaaraysa 50 kala buug oo leh nooc walba. berigii hore waxaan soo bandhigi jirnay qoraayada dibadda inay ka yimaadaan buugaagta ay qoraan. waxaan soo bandhigi jirnay qoraayada waaweyn ee Soomaaliyeed ee caanka ka ah inaan u yeedhno gobolka keenno dhalinyarada fursad u siino ay isku bartaan. waxaanu ka bilownay halkaa muddo dheer baan soo bandhigaynay qoraayada ka yimaada Yurubta ka yimaada qoraa kastoo caan ah oo Somaliland ah ama gobolka Togdheer u dhashay. waxaan u qaban jirnay xaflad inaan u qabanno dhalinyarada soo fadhiisino ay dhageystaan wixii uu qoray, sababtii uu qoray, su'aalo ka weydiiyaan, halkaa macluumaad la isku dhaafsado. maadaama maanta aynu 6 sanadood soo wadnay akhriskii qoraalkii, waxa hadda aanu ku guulaysanay oo naadiga akhriska halkan ay ku guulaysteen ama ay ka midho dhaliyeen inay soo saaraan dhalinyaro badan oo iyagii qoraaya ah. dhalinyarada maanta qoraayada ah ee gobolka Togdheer ka soo jeeda 80% ama 90% waxaan oran karaa waxay ka tirsan yihiin naadiga akhriska halkan. weliba hablaha waxaana weliba jecela hablaha inaan markii wax qoriyaan taageero siiyo. haddii aan nahay dowladda hoose degmada Burco, waxaan ka taageeri doonaa aqoonta, waxaan ka taageeri doonaa adduunka, waxaan ka taageeri doonaa waaya aragnimadeeda aan u leenahay education aan u leenahay. Sahra aad iyo aad baan soo dhaweynaa. wixii ka dambeeyay waxaan leeyahay hablaha wax qoraya waa in inta aan buugga soo saarin si aan gacan u siino, waayo ardaygu haddii aan la tashjiicin ama aan lagu sameyn wax la dhiirigelin aanu helin cid uu dabada saaro, waxay noqonaysaa inuu iska noqdo uun dee niyadiisu aanay moral sidaan idiin dhisno. ardayda anigoon kala saarinin ee wax qoraysa oo maanta doonaysa wax dhaxalgala in dalka uga tagto, weliba waxaan u sii laban laabaya oon caawa halkan uga ballan qaadaya hablaha wax qori doona inaanu gacan siin doono, maskaxdeeda ku caawin doono. hal kalmadood oo aan runtii ugu hambalyeeyo Sahra in lagu daydo inay mudan tahay buugga dusha aynu ka akhrinay, in la ogaado buugga qiimiga gudihiisa ku jira oo la akhriyo. waxa uu qiimo weyn u yahay in qoraayada ka soo baxo, waxa uu qiimo weyn u yahay fikirkii aqoonta Sahra ay ku qortay buugga, in la ogaado xikmadda iyo macnaha uu leeyahay. waxaan kula dardaarmayaa buugga inay iibsataan, waa laga helayaa meelaha kolley shoobada ah, akhridaan si idinkuna maskaxdiina iyo aqoontiinu
sahro kale uu runtii u higsada uu gaaro. Abubakar Carabi leeyo ka mid ah xubnaha naadiga halgaran oo buugan soo akhriyay ayaa madasha ka soo jeediyay qaybaha uu buugani ka kooban yahay, nuxurka uu xambaarsan yahay iyo taariikhaha dhinaca waxbarashada ee ku duugan, iyadoo ay sii faahfaahisay buugan iyo ujeedooyinka loo qorayna oo ay ka sheekaysay qoraaga buugani Sahra Jaamac Xayd, iyadoo ku tilmaamtay dulida buugani yahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo marxaladaha kala gedisan ee uu soo maray. sababtu waxay ahayd waxaan ka tegay halkan, waxaan tegay waddankan ilaalada dariska ah ee Yaman la yiraahdo, marka halkaas ayaan wax ka baranayay. markii aan ku jiray waxbarashada waxaan arkay farqi weyn oo u dhexeeya nolosha halkan ka jirta sida aynu inagu wax u barano iyo sida halkaa wax looga baranayo. marka arrintaasaa su-aalo fara badan u dhalisay. maxaa ina kala duway inaga, maxaa sidan inaga dhigay? dhibaatooyin fara badan baan arkay oo waxbarashadeena haysata oo aan kuwa dunida kala haysan.